kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan halkan waa radio Harwanaag oo aad ka dhageysataan idaacadda caalamiga harwanaag.com markaan dhageystayaal waxa ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ka diyaarinay kaboolayaasha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo duruufaha nololeed ee ku gadaaman barnaamijkan oo uu soo saaray ka yahay wariye Cabdirasaaq Goodnoor ayaa dhageystayaal waxa uu dhacay sidan ee dhageysi wanaagsan magacayga xarir ayuu bale maalin nololeed baa naga soo galay حرو إمسدي بد بلوضيين مهندنا قاعد كويس كوتشيسته ما بلا يا سدح سغاشتي يا سدح سغاشتي كم بلا سدح سغاش كي إلا وقتي أود فوق إلا سدح سغاش كم كلا قصوا بلابو ميتشلن حيالو كوسهلين مهندنا أنت هلا قاعد كوسه سو كعاونين كل حجته فسبال بينا وهندي فسبال ملا فسبال فايدو ما قصوا كلاه بيجران ما نورلا دوبا نقصوا كلاه مرمر ملا مركما إن نورمال ما يدخل لقته بيجران وحياله كله نلشين كابي يدخل كلاه ماي حق لو نقصوا كلاه waxaad aad uga caawinaysaa dhanka inaanay wax ka soo gelin wax dhaqaale buuran ma laga yaabaa adigu inaanad waqtiyo badan shaqeynin oo intaad yar shaqeyso aad markaba iska tagto taasi ay kugu sahlayso inaad dhaqaale yar hesho hay mar qura toona way soo marinba dhaqaale aanu ka helno bijir maalintii marka la isku daro mise intii lag bad shaqeysaa maalintii waxaanu shaqeynaa qadada iyo masaariifta ciyaalka وقت أنت لك بعد مركها هوشن قاعد كويس وتفرد ذا مالتي إلا تطبض إلا اللحظة قلبني بقى لا تطبض الصباح إلا اللحظة قلبني ما نفرد إلا سمعت شيء ممكن لقصه بلعبه وقت آدي أكبر مشرن إلا هذا الحياة كيف يدي مدة قاعد كويسي ندب ما يوح فايدة أنا كهل اللي بيتش السيد معانا مورس أنا عارف دخلك عنا فايدة أنا كهل مش ممكن جدا لا يقوم بدي أدور دار مشرن إذا ما صحر بدو أما هيدا أما حكومة دا ودوني سيني كان إذا كسي سوسيدي أدهوشن وسي هرمر الهيدا هي تدو بعد دحلو فريستا قوانا هيدا تدو بعد دحلو فريستا هو وإحنا سينا هانا إنه عاول ها مقراش تدو بعد دحلو فريستا كله إذا هذي أنت مشرن ما يعد نوت بدو لي مجرت حمدو إن وقت أدو درويان لا صدق إسكاشف كل شو أنتي مدينة كسي دحشرت مساعد ولا سنة كبح أيوة حنك كبح حتى هلوان كبح يا وح لا ما دان هلو ما كبح يا إن فرق الله أجو وقت دايرة كشرتي ما كسوم مرن وحيلي سهل يجينا مهندل إسكاجا تكتو أو أستري فرابعد كقد هذا ذو حاشو ولي ما ناكل من وح لعبة شقدا ولي ما نعرف أنا كقبحنا شقدا هو الشقاء هذا واضح مركل لقى قدنك كمتلست نوع كبا نوعية ذو تشان ودلك ay ka soo galeen badanta shan mise kaba kale waxa soo saartaan in kabiye dhaqankeena hay maaska bal arinta tafaasiil naga sii kaba dhaqanka wan tulleedan maasiyo raasameel tan helo wan tulleen ma laantii dhalahayo waxaan sameynaa kaba dad ka soo go'o si aad kabiyeeni dhaqankeeni maaska aad u sameeysan maxay ku hortaagan inaad kaba soo saartaan raasameel la'aan ma naga hor joogto يا غير سبال يقع عن قابل السلطان هلون صو صارنا هدي هذا شان دقالة بورن ما هيسان طريقي لوسو سير لا سيدي كبها لو سمين لا إن ماسك دلكنا هدي رقم كوا ما هيسان قلب كودي هدي هذا راس مال شان قلب كودي ونهلنا تنو سبال هلا أنا مصو صارنا يا سبال الآن ما نفسه صار كروين أنت قال له قدر
raasmaalaanta kasoo idigu mas'uuliyadan inaad samaysataan dadka walaashitiin gurubyo ama gudiyisu ku xidha si aad baahiyihiina macal u soo bandhigtaan oo aad waxa doonaysaan u gaadhaan waxa weeyaan Soomaalnimada cid isku timaada ma jirto gudina ma lihin gudiyaan isku nahar socota ma lihin laakiin waan soo gudida marka maxay idin ka hortaagin inaad gudi samaysataan si hawshiinuna horumar u gaadho idinku isku xidhnaataan waxa naga haystaa wax la'aan ma naga haysto tanu raasamaal la waanu keenina gudidii aanu helayna gudidii inaad samaystaan marka ma lacag ba ayaa idin haysmiya lacag baa noo haysa tan lacag lo gudidana waan soo haysan waxaa jirta in haydiintiimo ay idinka buuxiso fooni wax arrintaas hayda maxaad iyada ka leedahay haydiin inoo timaado hadday inoo timaado inayna gacan qabataan dooninaadii mid baa idintiimo foom idinka buuxisay arrinkaas ma jira way jirtaa maxay idinka leedahay qoraal un bay naga qaadan iyo muunado idiyo dhaqanka kabaha idiyo dhaqanka marka idinka in muunada la idinka qaadiyo kabaan idiyo dhaqanka wax danbi idinku jirtay meede waanu tusaynuun in wax naloogu soo daro oo qalab iyo maasna la siiyo baanu soo tusayn wax ma idin tiraan mise wax ma idin ballan qaadan weli waxba kaba haynade waanu ka soo warsugaynaa marka wax ma idin ballan qaad ma jira turjubaankii noo yimid baa yidhi waan idin keenayaa marka weli kaba hayno waxba wada waanu sugaynaa laakiinti aniga xamed xaraf xuseen baa laydhaa waxaan bilaabay 39 marka imika wallahi xaaladdu waa isku fiicantay meel fiican bay maraysa xamadow 39 waa waqti aad iyo aad u horeeya ilaa intaa 39 ka dambeysay hawshan gacanta ku haysay ma jiraan cid gacan ka siinayso ku saalaysa inaad miinadan aad ku sii dhex jirto anagu muruqimaan baan marka anagu hawsheedii ma taqaana haydiyo waxaan ma garanaysaa iyo waxaan ma garanaysaa anagu wax galno marka anagu hawsheedii iska daba muruqimaan baan hayaa marka wallahi alxamdulillah way xamido waxa sheegtay in haydiyo waxa aydan danay ilaa hadda ma jirtaan in haydiyo la soo xidhiidhayo doonay inay wax idin qabtaan maya ma jiraan waxaydan weli kulana ma jirto marka anagu hawsheeda muruqmaalkaas ma nool saas ma wadana hay'adii wax idan xilleed ma jirto xamidu hawl kastoo la qabanaya dhib iyo dheefba way leedahay ilaa 39 iyo ilaa maanta ma jirtaan dhibaatooyin ka hor yimi oo xataa ku dirqiyay inaad ka tagto hawsha maya laakiin ka tagto shaqo ka tagi karaa laakiin waxa aamuma iyo kana saadi waxa kulan maanu yahay marka insha Allah balkan in kamaan doon aynu hawsheeda ku jirnaa fadlan inaad gashaan ma garat marka waa sida hawsh waxa sheegtay inaanay idina gacan idinka siinin miinadan kabatulida oo minid aad u adag marka dhan kala laga eego in xamidu waqti 39 marka la eego waqti aad u fog in marka la 39 laga soo bilaabo wax faa'iido oo ilaa imika ka haysa oo dhaxal gali ma jira maya taas jawaabteen kaasina dhageystayaal waxa uu Cabdirasaaq Goodnuur oo inoo diyaariyay barnaamij gaar ah oo ku saabsan kaboolayaasha ku dhaqan magaalada Hargeysa intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waaniga Najaadan Cunaya iyo dhamaanba khiyaarta radio Harwanaag oo idinka tagaysa sidaas iyo nabadgelyo